Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga 6 saac socod kadibna soo noqo oo waxaad aragtay soo sheeg run ahaantii markii aad maqasho ereyo noocan oo kala waxa ku soo dhacaya maskaxdaada su'aalo badan oo aysan jawaab u haynin waayo marka lagu yiraahdo muddo 6 saac socod kadibna soo noqo oo waxaad aragtay soo sheeg way adagtahay inaad horey ka ogaatid xigmadda ka dambaysa safarka intaas leeg waxayna kugu noqonaysaa la yaab in aad maqasho ereyadaas haddaba waxaynu eegi doonaa qisadani xigmadda ku duugan iyo waxa loola jeedaa arrinka haddaba intaan u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya hele barnaamijyadeena hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid nin xigmad badan ayaa waxa uu yeeray nin kale waxauna ku yiri jihada aad oo 6 saac soco kadib soo noqo oo waxaad soo aragtay soo sheeg ninkii sida la amray ayuu sameeyay oo dhankii loo diray ayuu u socdaalay wixii ugu horeeyay oo arkay waxay ahaayeen isagoo maraya waddo u dhaxaysa laba buurood wax yar oo dhalaalaya oo waddada dhex yaala wixii ayuu ul ku dhuftay kadib qarax ayaa ka dhashay dabadeed labadii buurood ayaa isqabsaday isla markiiba dhinac ayuu uga wareegay oo socodkiisii ayuu sii watay dabadeed wuxuu arkay guri qurux badan gurigii ayuuna albaabkiisa furay mise ur ayuuba dareemay kadib gudaha ayuu u sii galay guriga wuxuuna arkay in saxaro ka buuxdo guriga uuna isaga soo baxay socodkiisii ayuuna sii watay dhacdadii saddexaad ee uu la kulmay waxay ahayd inuu arkay rati gaajo la soo gotay oo dhex taagan dhul ilaahay subxaanahu wa tacaala doog iyo barwaaqo ku manaystay balse aanan cunayn naqa iyo doogga ka baxay halkaas wuuna ka sii socday oo haddana wuxuu la kulmay rati kale oo fadhiya oo ay calooshiisa iyo qaybaha kale ee jidhkiisa ay isku dagaalayaan dawaco iyo dhurwaa balse aanan dan ka lahayn ee iska daaqaya sidii caadada u ahayd wuu ka sii socday ugu dambayntii wuxuu la kulmay gabar qurux badan oo gadaal u sii ordaysa gabadhii ayuu daba orday wayna ka sii cararaysaa mar waliba oo u soo dhowaadaba kadib wakhtigii 6 saac ahaa ayaa ku dhammaaday kolkaas ayuu isaga soo haray oo uu ka soo laabtay gabadhii dabadeed wuxuu u yimid ninkii marka hore diray wuxuuna u sheegay waxyaalihii uu soo arkoo idil dabadeedna wuxuu ugu jawaabay haddaba waan kuu fasirayaa waxa aad soo aragtay ee ay dhegayso midda koowaad waa wixii yaraa ee dhalaalay ee aad usha ku dhufatay ee isla qarxay labadii buuroodna inay isqabsadaan sababay middaasi waa fidnadu marka hore way hurudaa balse marka la toosiyo ama la doonto waxay sababtaa in waxa yar ee kuu muuqda dhibaato ka weyn laga dhaxlo ka labaadna gurigii quruxda badnaa ee aad la kulantay gudahana saxaradu ka buuxday waa taariku salaadka waayo qofka aan tukanin korka labis ayuu ka xidhan yahay jidhkana waa uu qurxinayaa balse qalbiga waxaa ka buuxda wasaq waayo waa qalbi aanan alla xusin tan saddexaadna ratigii keenta barwaaqada taagnaa balse qatanaa waa bakhayl ama dhabcaal waayo bakhaylku xoolihiisa cidna waxba kama siiyo asna kama baahi baxo oo waa uu ka qatan yahay waana arrin dhibaatadeeda leh dhacdada afaraadna ratigii xubnihiisa la iska cunay ee aan danta ka lahayn kaasi waa deeqsi waayo deeqsiga xoolihiisa dadkoo dhan baa cuna dhibna uma arko nafsadiisana ugama bakheelo dadkana kalama bakhaylo dhacdada shanaad ee ugu dambayso waa gabadhii gadaal u cararaysay middaasi waa adduunyada weligii haddaba orod gaari maysid waayo aakhirkeedu waxay ku dhammaataa geeri waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iido sheekadan xigmadda badan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media adigoo subscribe na saaraya gambalaalkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela barnaamijyada aan soo gelinay channelkeena hana hilmaamin inaad la wadaagtay asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan mahadsanid